وعن داوديال dhageystayaal idilhaan meel walba aad joogtaan waxaan ahay suuqyare barnaamijkeena maanta waxaan u hadli doonaa hadii uu Rabbi raali ka noqdo waa kuma madaxweynaha kaliya ee dalkan u jiheeyay siina aqoonsiga wadanimo ee lagu yaqiinay magaciisa oo dhameystiran waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed waxa uu ku magac dheer yahay Farmaajo waa muwaadin Soomaali ah ee ku dhashay kuna barbaaray magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho magaca Farmaajo ayaa ah magaca kaliya ee ay ka cabsadaan kumanaan shisheeye kalkaal ah ama dalaaleyda adduunka ee ku xeel dheereeya kala gadashada siyaasiyiinta mayalka adag ee Soomaaliya soo mara Farmaajo ayaa ah madaxweynihii ugu horeeyay burburka kadib madaxweyne iska daaya awood u siiya wasiiradiisa in ay ceyrin karaan kana saxiixan karaan heshiisyo caalami ah Farmaajo ayaa ku guuleystay in uu wadanka ka tirtiro gabi ahaanba magacii sharaf xumada ahaa ee ay bixiyeen caadana ka dhigteen in ay mushaar ama qoonto isbuuclo ah ka dhigtaan madaxdana ku kala eriyaan magaca mooshin kaas oo ay barbar socotay ama ku quud ama ku kala dir hawo soo celin garoona diyaaradeed sameyn xornimada wariyaha ama muwaadinka dib u soo celinta tiyaatarka qaranka stadium Muqdisho ku guuleysashada wadada xiriirisa Afgooy iyo Muqdisho dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar taliyayaal da'yar ah dhisidooda qurxinta caasimadda Muqdisho tababarid ciidamo fara badan nidaam maaliyadeed mushaar ciidan iyo shaqaalo dawladeed oo joogto ah iyo intaas in ka sii badan waxa uu ku soo baxay Farmaajo kagana duwan yahay madaxdii hore ee dalka soo martay haddana u hanqal taagaya in ay dib ugu soo laabtaan xukunka Farmaajo waxa uu heer marayaa in uu wasiirka Soomaaliga oo dalka ka eri karo ajnabiga uu qalad ku arko maxkamadna saari karo waxa kale ee ka ilmeysiyay shisheeyaha ama cadawga ayaa ah in uu ku dhiiraday Farmaajo saaridda maxkamadda iyo ku xukumidda dil toogasho ciidamada AMISOM ma soo marin askari AMISOM ah in ku xukun dil toogasho iska daaya taliyaashiisa lala xisaabtamo iyadoo ay AMISOM caado u ahayd jiirida iyo xasuuqida shacabka Soomaaliyeed intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennii maanta oo aan uga hadlaynay madaxweyne Farmaajo qaybtiisa koobaad inta aan barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono waa suuqyare oo idin leh yaan barabara la noqon ee dhiiga ha shaqeeyo fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh